runtii waxaan raadinaynaa isbedel dhab ah inuu yimaado. isbedelka loo baahan yahay xaqiiqda waxay tahay inay ka bilaabato madaxdu hadday wax ballan qaadaan inay fuliyaan. waxaan ognahay madaxweynaha hadda waqtigiisa dhammaaday inuu ballan qaadyo badan sameeyay laakiin kulli ma soo wada koobi karo. waxaan ka soo qaadanayaa inuu ballan qaaday in election uu dhacayo ama doorasho ay dhacayso September 10keedii 2016. nasiib darro September waxaa ka dambeeyay 5 jeer oo dib loo dhigay. waxa weeye 30kii October ayaa ku xigtay, 30kii November, 28 December, haddana waxaan ku jirnaa January 2017 yaan ku jirnaa 2017 yaan ku jirnaa oo aan aaminsanahay inuu election ka dhici doono bishan dhamaadkeeda hadduu eebba yiraahdo. ballanqaadkii madaxweynaha uu sameeyay waad aragtaan, xitaa waxay ay maamuli waayeen schedule-kii ama jadwalkii electionka lagu qaban lahaa iyo maamuli waayeen.